الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaan mar kale ku soo dhowaada barnaamijkii aynu u bixinay ixasuusi. waxaa idinla hadlaya oo hooskiina ah Siciid Cilmi Raage. waxaana ka daawanaysaan barnaamijkan telefisyoonka caalamiga ee la yiraahdo Horn Cable TV. maanta waxaynu leenahay xalaqad cusub waynu oranayno ixasuusi salaada. nabiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala labaduba salaada aad iyo aad ayay uga hadleen. qur'aanka meel walaad furtidba salaada wa aqiimu salaata wa aqiimu salaa wa aqiimu salaa. sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada meel bay ku taallaa oo xadiid walba waxaad ku arkaysaa ama xadiid fara badan oo ka hadlaya salaada. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu salaada ka dhigay fard oo waa kii yidhi wa aqim asalaa wa aqim asalaa. salaadani markaa taariikh cajiiba ayay leedahay, taariikh cajiiba. salaada fadligeeda si aad u qiyaastid ayaan kaga sheekeynaya, aynu garanno qiimaha iyo qaayaha ay leedahay. axkaamta diinta oo dhan nebi maxamed asagoo dhulka jooga ayaa lagu soo dejiyey. qur-aan baa ku soo degay, axaadiis baa ku soo degtay, jibriil baa la hadlay, waxyi baa ku soo degay, ilaahay baa riyada wax ugu sheegay. boqol nooc fadliga salaada siad u ogaatid, nebi maxamed baa inta dhulka laga qaaday la geeyey samada sida loo soo faro salaada. yaan u fiirso, ilaahay mu odhan markaa salaadii baan soo dejinaya may ii kaalay buu yidhi. ilaahay baa intuu ka qaaday dhulka al-israa waa maka to masjid al-aqsa, almicraaj ilaahay samada cirka taxta carshi araxmaan ayaa la geeyey. saa la yidhi salaad baa lagu faraya. 50 salaadood ayaa nebiga loo soo geliyey qoorta isagoo faraxsan oo diintayda iyo ciddii aamintay waxay maanta u salaad baan u sidaa, khayr baan u sidaa. ayuu nebi muuse la kulmay, sida sheekada badda u garanaysaan. uu nebi muuse maxaa lagu soo faray? wallahi 50 salaadood baa laysoo farayo dadkii baan u gudbinay. dadka ma karayaan, khibradba dadka u leeyahay. nebi muuse la yuhuud baan ka soo baxay jaamacadeedii, adigu ku noqo ilaah xataa iga yare iga khafiifi. ilaa kolba marba uu soo noqdo lagu celiya, marba uu soo muuse celiya. 5 bay ku dhamaatay sheekadii. nebi muuse yidhi 5 xitaa kari maayaane ordayga khafiifi. suuli ilaahay baan ka xishooday, intaasoo goor baan ku noqday. ilaahay markaa wuxuu cirka ayuu ka soo hadlay, wuxuu yidhi laa yubadalu lqawlu laday, hadalkaygu isma bedelo. 50 salaad baan ku soo faray, ajarkii 50 baan ka dhigaya, ficilkii 5 la kaalaya. sidaa ayaa horta salaada in lagu soo faradna laga soo dhigo nebi maxamed loo soo dhiibay. hadiyadda asagoo ilaahay inooga keenay ayaa inaloo keenay, qaata hadiyadan waxay ka timi ilaahay. nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada waxyaabo ku tilmaamay. wuxuu ku tilmaamay inay faaxishada iyo dembiyada salaadu inaga reebi karto. wuxuu yidhi ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar. salaadu faaxishada, zinada, kelimada xun, qowl ilfuxsh, waxaasoo dhan iyo wixii munkar ee dee dabiicadda bini aadamka iyo diiniba diidayso ayay salaadu inaga reebaysaa buu ilaahay yidhi. nebigii sala allahu alayhi wasalam axaadiis fara badan baa laga soo wariyey oo salaada khusaysa. ka ugu muhiimsan aan jecel inaan taabto iminka ugu horreysiyo waxa weeye, wuxuu yihi nebigu, ilaahay wuxuu yidhi salaada aniga iyo addoonkayga ayaa qaybsanay. yani subxaan allah, basharaftaa eeg. allahu akbar baad odhanaysaayo ilaahay baa ka odhanaya, aan ku dhegaystay. waxaad tidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, addoonkayga wuu ii mahadnaqay. alraxmaani araxiim, addoonkayga wuu i weynay. maaliki yowmi ddiin, saa kolba
waa lagu jawaabaya. adug ma maqlaysid laakiin waa lagu jawaabaya. waa ilaahay baa ku dhagaysanaya, ilaahay baana ku jawaabaya. marka sheekadu maqlayso maalik yawm اddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayuu ilaahay odhanaya. addoonkaygu waxbuu i weydiistay, wuxuu weydiistayna wuu leeyahay. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina ilaahayow nasoo hade, ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta caleyhim. iyaaka nacbudu taa u fiirsada. adaanu ku caabidnaa, sheekh ma caabidno, wadaad ma caabidno, awliye ma caabidno, cid kale ma caabidno, adaanu ku caabidnaa. ihdina adugu na hanuuni, ma odhan sheekh hebel ii soo diriya, may adugu na hanuuni. ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta caleyhim, ariiqii kuwii aad ku nicmaysatay, gayri اlmaqduubi calayhim kuwaad ka cadhootay, aad gadabkaaga iyo caradaada aad dul saartay hanaga dhigin, wala daaliin iyo kuwii lunsanaa midnaba. aamiin. markaa salaadu waa halkaasa ilahay ka taagantay. wuxuu yidhi nebigu salى اllahu alayhi wasalam, waxa ugu horeysay ummadaydu ka tegaysaa salaada markay timaado waa khushuuc fi الsalaa. diinta waxa ugu horeeya laga tegaya, cafwan, diinta waxa ugu horeeya laga tegaya waa khushuuc fi الsalaa. waxa ugu dambeeya diintan laga tegayaana waa salaada. markaa qofkuu yidhi muslim baan ahay, ilaahay baan ka cabsanaya, waan soomaya, waan xajaya, sakadin waan bixinaya, mana tukanayo, dee been buu sheegay. waayo diintan wixii ugu dambeysay laga tegayaba waa salaada. nebiguna wuxuu yidhi inaka iyo gaalada waxa ina kala sooca waa salaad. yani alcahdu aladi baynana wa baynahum الصalaa faman tarakaha faqad kafar. gaalnimo iyo shirknimo iyo inaka waxay noo dhexayso waa salaad, waa salaad. ta ugu soo dambaysa xadiiskan jecelahay inaan kusoo gunaanado kelmadan ee aad iyo aad u muhiima, waa xadiidka nebigu uu yidhi awalu maa yuxaasab, maalinta yowma alqiyama waxa ugu horeeya qofkan laga tirinaya oo laga xisaabinaya oo lani waaba keen so mas-uuliya baa lagu dhiibay soo ma aha. reer baa lagu dhiibay, diin baa lagu dhiibay, caruur baa lagu dhiibay, shaqaa lagu dhiibay, naftaada waa ammaano, xitaa xayawaanada kunool agtaada ku agmarya waa ammaano, dhirtan lagu agbeeray baa lahi waa ammaano, hawadanaad ku nooshay baa waa ammaano, jirkaagiyo ayaa waa ammaano, wadnuhu waa ammaano, carabku waa ammaano, waa bayna xisaabi. laakiin ta ugu horeysa intaan zaka lagaa weydiinin, oo sadaqa lagu weydiinin, oo tarbiyadda carruurta lagu weydiinin, oo waxba lagu weydiinin, waxaa lagu leeyahay horta salaaddii barta soo dhig, salaaddii halkan soo dhig. salaaddii markaa la eegaya, haddii salaadu marka idaa saluxat hadday hagaagto, dee wuxuu leeyahay saluxa saa'ir camali, wax taa ka dambeeya oo ninka laga wareysanaya ma jirto. wax ka dambeeya salaaddii saxab somaa, waa salaad sax, ninka sii daaya, ilahay kaligu waa caabudayo, waa salaad sax, albaabka u fura. hadda ninkan may dembi dambe loo xisaabin maayo, ha laga xisaabay miisaani may laga xisaabin maayo, waayo salaaddii baaba saxa, salaaddii ayaa laga aqbalay. wuxuu ihi nebigu laakiin ay salaaddii hagaagi weydo, waxaa la odhanayaa waaba sunnihiisii eega, sunayaashuu tukanayey ila 2 ragcadood baa fajr ka horeeya, 4 ama 2 ka horeeya duhur, 2 ka dambeeya maqrib, 2 ka dambeeya cisha, 2 ka dambeeya witirkii iyo sunan kale iyo taxiyat almasjid iyo nafli, waxbaa meesha yaala. waaba kuwaynu eego, haddii laga helo salaado caynkaasa ugu kaba salaadii faradkii, tii baa la waayay. salaad saxna maaha, sunna salaaddii sii kabtana ma hayo, nafl salaaddii si kabta ma hayo, maxaa xala? dee waa ka kaca. wuxuu ihi nebigu waidaa fasadat, hadday fasado salaaduna, fasada saa'iru camali, camalkiisii kale oo dhan wuu fasiday. yaa allah, ninkani xaj buu tegey, ingiriisku ka tegey, maraykanku ka tegey,
kanaduu ka tegey, meel buu ka tegey, soontii ramadaan buu soomi jiray, sadaqu baxsaday, caruurtii buu u wanaagsanaa. may baa la yidhi, salaadii baaba fasaday, maxaa hadhay? marka salaadu caynkaasay daruuri u tahay. hala ilaaliyo walaalayaal salaada, yaanan la luminin. waxaan idinla hadlaya walaalkiin Siciid Cilmi